maama Faadmo Jibriil waxay ku soo noqotay Soomaaliya waxayna ay hindistay oo la timi inay maaragtay iskuul ka duwan waxbarashooyinka meesha markaa ka jira oo anfacaya dadkan maadaama ay ahayd qof u qareenta arrimaha deegaanka iyo reer baadiyaha inay maaragtay wax dantooda ah meel lagu barto oo dad garan kara bal noloshooda maadaama nolosha dadka Soomaaliyeed ay ku xiran tahay reer guuraanimada iyo xoolaha dhaqatada iyo deegaanka haddaan ku laabto iskuulkaas baan meeshaas ay ahayd meesha u horeysay aan Faadmo Jibriil isku baranay aniga oo markaas ay ka mid ahaa dhalinyaradaas aan fursad u helin inay waxbarasho helaan ayaan Brown Rural Institute aan noqonay ardaydii meeshaas u horeysay oo iskuul boarding oo lagu xareysan yahay ah inaan galno gabdho iyo wiilal isugu jira waxbarashadu markaa maadaama dadku dhalinyaro soo dhaafay waxbarashada xilliga waxbarashada oo dugsi hoose dhexe aan nahay waxa la sameeyay manhaj munaasib ku ah dadka meesha la keenay